gaadiidkan oo tiradoodu gaarayso 68 nooca dagaalka ee gaashaaman waxaa dowladda Soomaaliya ugu deeqay dowladda Qatar xilli uu socdo diyaar garow howlgal dalka looga sifeynayo maleeshiyaadka al-shabaab. gaadiidkan ayaa lagu soo raray markab iyadoo lagu kala wareegay dekedda Muqdisho. General Mahmoud Al-Ghazal oo ka mid ah saraakiisha militariga dalka Qatar ayaa sheegay in dababaadkan dagaal ay ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka ay muujinayso sidii diyaarka ugu yihiin taakuleenta ciidamada xoogga dalka. الإرهاب والتطرف الذي يعاني منه إخواننا في جمهورية الصومال منذ فترة طويلة وحتى هذه اللحظة، فنتمنى أن تكون داعما قويا في إحلال الأمن والاستقرار في هذا البلد ولهذا الشعب الكريم. سريغاس داهر آدن علمي نقرشي تليها عيدن كحوق دلكا أيام مهدعلين كدب شيغي إن قاديد كان ووحبادن كبدل دونو نوعا هولقلada ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab. waxaan ku dadaaleyna sidii loo kugu talagalay inaan u isticmaalno oo ah gacanta ciidanka xoog dalka Soomaaliya inay ku jiraan una adeegsano inaan u isticmaalno cadawgaas mataqaana ummadda Soomaaliyeed maxaan ku radaa cadawga ku ah shacabka Soomaaliya jiritaankooda iyo nabadooda intaba. ma haddaan u celinayaa wafdigan oo General Maxamed uu madaxda ka yahay iyo safiirkaba oo muddo mataqaana ku sugnaa dalkan sugayay markabkan inuu yimaado kuna nuguna wareejiyaan maxaan ku radaa gaadiidkan meesha ka muuqata horteena ka muuqata. xildhibaan Xuseen Carab Ciise gudoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa sheegay inay muuqato rajadii dhismaha iyo tayanta ciidamada xoogga dalka. wasiirka taliyaha iyo safiirka jooga Turkiga iyo Qatar ciidamada qalabka sida labada dhinacba runtii waxaan maanta u mahadcelinaynaa uranimay inaan aragno taageerada ayna tustay dawladda Qatar walaalaheena ciidamadii qalabka sida halkan ay joogaan maanta iyagoo nagu wareejinaya dhowr iyo 60 gaari oo aragtaan kuwa gaashaamana runtii. wasiirka gaashaadhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed ayaa dowladda Qatar ku amaanay doorka ay ka qaadanayso dhismaha ciidanka. waxaan filaynaa ama rajaynaynaa ka rajaynaynaa dalka walaalaha ee Qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. tanna waxay daliil ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo hadafka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed